ururka horumarinta haweenka Soomaaliland ee magaciisa marka la soo gaabiyo loo yaqaan Sawd ayaa dhar u qaybiyay qaar ka mid ah haweenka danyarta ah ee curyaamiinta ee ku nool magaalada Boorama si ay uga qayb qaataan maalinta haweenka adduunka. haweenka danyarta ee dharka la gaarsiiyay ayaa ururka uga mahad celiyay deeqdaasi. waxaan xaggan ka salaamayaa maanta haweenka adduunka maadaama ay tahay maalintii loo asteeyay haweenka in la xuso maalin kasta oo aan maalin kaliya ahayn xaq bay u leeyihiin waayo waa hooyaduna waa qaali ma aha wax fudud inaad nala xustiin oo dhammaan wada xusno hooyadu waa wax meesha ku jirta marka munaasabada maanta ee xuska haweenka awgeed ka urur ahaan annagu waxaan soo qaadanay inaanu ku caawino dadka iyaga tabcaansan ee dhimirka ah xag maskaxeed iyo xag jidhba inaanu ku caawino wixii aan xaflado iyo meelo kale la tagi lahayn inaan ku caawino dadka iyagaas oo aan ku hadiyadeyno qofba labis ayaanu ugu talagalnay haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan salaamayaa dhammaan haweenka adduunka gaar ahaan haweenka islaamka gaar ahaan haweenka Soomaaliland oo ay ugu horeeyaan labada marwo Aamina Waris iyo marwo Raxme Xaaji. waxaan ku salaamayaa dhammaan haweenkan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Awalan Ilaahay baan mahadlay isugu keenay madashan maanta oo ay tahay 8 Maars ahna maalin loo asteeyay hooyada kolley mudna in maalin loo asteeyay maalmo badan loo asteeyay ay mudan tahay sababta ay tahay hooyadu waa ababiya waa ururiya waa isku keena waa maxamta agaasima wasiir kastiyo madaxweyne kastiyo sheekh kastiyo sharif kasta hooyaa dhasha sidaa darteed ma mudna in maalin loo asteeyay in maalmo badan loo asteeyay mudan tahay hase yeeshee haddii maalintan loo asteeyay waxa weeyaan annaguna inaan xusno dhammaanba waxaan salaan iyo hambalyo iyo bogaadin u dirayaa haweenweynaha adduunka gaar ahaan haweenka islaamka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed haddana haweenka Somaliland oo ay ugu horeeyaan labada marwo maxamed Aamina Waris iyo marwo Raxme Xaaji Maxamed Suldaan. waxaan kale salaan iyo bogaadin u dirayaa haweenweynaha halkan isugu yimid oo maanta si khadraba u sheegtay aan ugu tabarucnay labiska waayo xusku ma aha in xaflada la qabsado meel kasto soo gala maantana arligeena anigoo message-kan u adeegsanaya abaaro ayaa saameeyay kuwii kaalinta weyn ka qaadan lahaa ayaan nahay insha Allah bismillaah kariim intan ka ballaaran inaan qabanano waan ku tala jirnaa. wuxuu bixiyay aad u maadsayeen anaguna ku guddoonsanay iyaga akhriis kale marka sidaa ka daayilkeeda ugu mahadsanyihiin hooyooyinka maanta ka farxiyay Allah ka farxiyaan leenahay Allah ka abaalmariyo run ahaantii xafladda maanta 8 Maarso ay noo qabteen haweenka Sawd runtii waa arrin loo baahnaa in maanta la qabto 8 Maarso oo aan magaalada kaleba ka jirin wax xasuustay maalintii haweenka runtii dumarkan naafada ah ee horteena fadhiya oo ay u qaybiyeen labisyo runtii aad baan ugu mahadnaqayaa wayna ku mahadsan yihiin ururka Sawd. abid ka dhicin Somaliland iyo Boorama waxa weeyaan oo waxyaabaha ku dayashada mudan in wax qabad loo muujiyo haweenweynii maanta 30 qof ee ay guddoonsiiyeen maxay ahayd agabkaasi way xusuusnaanayaan maalinta 8 Maaris ya si weyn bayna uga calaamadaysnaanayaan dadka maanta wax la siiyay waa arrinkaasi waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa uguna bogaadinaynaa ururka Sawd arrinka wanaagsan ay qabteen. اسمحوا لي أتكلم عن معنى مساعدة الآخرين هي تقديم العون والمساعدة والدعم لمن يحتاجها سواء كانت هذه المساعدة نفسية أو مادية أو إفادة علمية أو حتى بتقديم مجهود شخصي لشخص المحتاج لهذه المساعدة. ومن تعاليم ديننا الإسلامي العطف والتكافل للفقراء والمحتاجين ويجب علينا أن نقدم للفقراء والمحتاجين المال والمأوى والملبس والطعام وكل ما يفرج كربهم فالمسلم أخوه المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته
ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه في كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لذلك يجب على المسلم أن يساعد أخوه المسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد عمر جري، شبكة عالمية بورما نيوز، مقالة بورما.